Assalaamu calaykum. In badan waxaan arkay muuqaalo loogula hadlaayo mise fariin loogu diraayo dadka dulman, dadka la dhibaateeyay, dadka la dhaabacay, dadka lagu xadgudbay oo lagu dhahayo ha isdhiibin, ha niyad jabin iyo oraayo kaloo la mid ah. sidoo kale waxaan marnaba arkin aniga shakhsi ahaan muuqaalo fariin loogu diraayo dadkaasi dulmiyay, dadkaasi dhibaateeyay, dadkaasi dhaabacay, dadkaasi ku xadgudbay oo runta lagu taabsiinayo. insha Allah maanta waxaan rabaa inaan la hadlo mise aan fariin u diro dadka qaldan ama qalafsan, aan la isku dayo inaan runta taabsiiyo oo aanan waxba u qarinin. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. waxaad rabtid sameey, adiga ayaan kula hadlayaa oo dadka dhaabacay, dadkana dhibaateeyay. haddii aad qof ka oysiisid, ilaahay wuxuu kuu soo dirayaa qof ilintaada soo daadiya oo adigana kaa oysiiya. sidoo kale haddii aad qof wejigiisa dhoola caddeynta ku sawirtid, yacni aad qofkaasi ka farxisid, ilaahay wuxuu kuu soo dirayaa qof adigana wejigaaga dhoola caddeynta ku sawira oo adigana kaa farxiya. xitaa haddii aad ku sugan tahay xaalad murugtan ugu saraysa uguna dhibta badan, si wacan ii dhegayso. haddii aad qof ka oysiisid, ilaahay wuxuu kuu soo dirayaa qof adigana kaa oysiiya oo sabab u noqda inaad oysid. sidoo kale haddii aad qof wanaajisid ama aad qof ka farxisid, ilaahay wuxuu kuu soo dirayaa qof sabab u noqdo inaad adigana faraxdid. dabcan waxaad rabtid sameey. haddii aad qof khiyaantid oo aad noqotid qof qaa'in ah, waxaa kuu imaan doona qof dhabarka kaa toogta oo ku khiyaana oo noqda qaa'in adiga kula mid ah. laakiin haddii aad ilaalisid qof qalbigiisa, haddii aad ilaalisid qof dadnimadiisa iyo qofnimadiisaba, waxa uu ilaahay kugu irsaaqayaa mise uu ku siinayaa qof ku ilaaliya oo ku dhowra, xitaa adiga oo aan u jeedin waxna ka ogeyn. waxaad rabtid sameey. qofkaad doontidna qiyaan. adduunka xaalkiisa ayaa ah wareegto. wareeg dheer kadib adduunka hortaada ayuu soo istaagayaa si uu kugu sameeyo waxa aad adiga khayrkaaga ku samaysay. wuu ku soo hor istaagayaa si uu kaaga aargudo mise kaaga abaalgudo dadka khayrkaaga waxaad ku samayday. waxaa jirta oraa carbeed oo tidhaahda kamaa tudiinu tudaan wa kullun yaxsudu maa zarac, oo micnaheedu yahay sida aad adiga u dhaqantid ayaa lagula dhaqmayaa. qof walibaana wuxuu gurtaa wixii uu isaga beertay. qof tiin mise qodax beertay ma guranayo miro macaan badan oo uu ku macaansado. dad dulmi waa lagu dulminayaa, dad qiyaan waa lagu qiyaanayaa, dad dhib waa lagu dhibayaa, dad ku xadgudub waa lagu xadgudbayaa. nolosha xaalkeeda ayaa ah u qari waa lagu qarinayaa, u naxariiso waa lagu naxariisanayaa, wax bixi mise sii waa lagu siinayaa, sabar waad gaaraysaa. saxiix waa wax la huba. qofkii sabraa meesha uu rabay inuu gaaro mise halka uu doonayay inuu gaaro wuu gaarayaa. waa xaqiiqatan laa qayaal, waa wax la huba aan shaki lahayn. saaxiib, walaalka iyo walaashay, sameey wax aad jeceshahay maalin in lagugu abaalgudo waxaasi wax la mid ah. sidoo kale dhammaan tasarufaadkaaga iyo dhaqamadaadaba waxaad sal ama asaas uga dhigtaa qaacidadan ah kamaa tudiinu tudaan wa kullun yaxsudu maa zarac. sida aad adiga u dhaqantid ayaa lagula dhaqmayaa. qof walibaana waxa uu gurtaa wixii isaga uu beertay. u fiirso waxa aad samaynaysid ka hor inta aanad samaynin, una fiirso waxa aad ku hadlaysid ka hor inta aanad ku hadlin, kuna xisaabtan in lagugu abaalgudaayo waxaasi wax la mid ah. marka ay nafsadaada kula taliso mise ay ku amarto inaad qof u dhibaataysid, ha ka aqbalin ee ku dheh ilaahay ku abuurtay ka baq. dadka islaamka ahina ha kaa badbaadaan. waa anigoo ah Cumar Maxamed, halkanina waa kanalka Garwaaqsi. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.